أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبسكرايب كيس على سبسكرايب كهلا دافنا لايك سبسكرايب شير كبوبة وهذا السلام الصومالي ميل كسر جوكتن dalka iyo dibadda meel aad joogtaan waa wada salaam Soomaaliyeed waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. bacda salaam waxaynu ka hadlaynaa maxay ahayd xasan sheekh oo baan arkay ka degay Itoobiya marka waxaan la yaabsanahay sababtoo markii hore xagga kan la haystay maxay uu dhinaca kan u cararayay Masar maxay isbedelay iminka waxaan la yaabsanahay Itoobiya markii hore uu ka cararayay tolo Masar may kaga baxday Masar baa kaga baxday laga yaabo Masar inay kaga baxdo marka way wanaagsantahay waddanka dariskiisa axsan inuu waddanka dariskiisa inuu nabadgelyo iyo heshiis kula noolaado waa wanaagsantahay waana colaad cusub u samayn Soomaali wasaarina deeynaa danteena ma waa loogiyo dalkeena hadii waxay u timi wax la wada ogiyo la wada garanayo waa duulaan iyo dagaalna Soomaali maanta keeday ka badin weydii wax maslaxadooda ma in weerar laga qaado waddan kale waddanka Soomaaliya dhibaato waxaan ahayn ay ku keenaysaa ma jirto marka waxaan arkay isagoo cagaas soo dhigay markuu Itoobiya ka digay wixii la sheegay waa la sheegay laakiin runtii way timi runta tagi waan maqli jira adduunka caalamka dib wax ma taqaanaay leeyahay wuxuu ka soo faa'iiday ma jirto meel kasta oo tagay waxaan ceebahay inuu ka keenay ma jirto marka waxaan warka cagu soo dhigay cagu ka soo dhigay watan kale dagaalada la leeyahay waxa lagu jiraa qolyaha kan xaq jirka khawaarij ka argoosto waan leenahay ka argoosto ku wada ka argoosto ka harina ilaa kaga saartaan dalka waddanka ilaa kaga saartaan ka harina ku wada ciidan tababarana waa haysataan nasiib wanaag waqti fiican buu ku soo beegmay xasan sheekh waxaynu ognahay berihii hore qofkii qof dile hortaada soo ku dila loo arkayo aan ciidan soo qaban jirin waxaynu ognahay sida xaqdaraha sida la doonay dadka loo geli jiray wax la soo qaban jiray aanay jirin awood baan loo lahayn lagu soo qabto alxamdulilah weeye maanta waa inay ilaahay ka shukriyaan iraan alxamdulilah kii qof dilay iyo kii wax dhibaateeyey iyo kii wax yeelay iyo kii mayar dilay wataa la soo qabanayo waddanku ciidan buu leeyahay dowlad dhisantay wanaagsan iyo ciidan xoog leh awood leh oo wax ka qaban kara dalka buu maanta leeyahay marka laga faa'iideysto waan leenahay shacabku ha kaceen awalba shacabka meesha ka maqnaa shacabka hadday ka kaceen awal wata diidayaan lahayn anagu ciidanku waa ciidanka ka soo horjeedaan awal lahayn waa ciidanka farmaajo waxaan warkaa shacab iyo ciidanka hadday israacaan imanka inay guushu dhowdahay guushiina dhowdahay tan kale aan ka hadlaya waxa weeyaan farax macallin oo yiri wax kasta waan u qabtay Kenya wax kasta waan u timi waan arkaa in soo sheegayna tali wax weeyaan farax macallin wixii wax kasta waan qabtay waa la aamusnaayo Soomaaliman hawsha waday buu yiri hoosahan marka aan kadib waxay doonaan ku hadlayo xaqiiqo sida soo sheegay runtii waa aaminsanayno tifiyada wax ka hadlay marka darto wadayadas dhaqan xumo dadka ku jirtay qabyaalada iyo fool xumada iyo dadka waa la baraya dadka qabyaalada qon baa la baraya sagana waa la baray marka hadda mala waa la baray dad badan oo hadli jirin ba hadlay fool xumada iyo wax ka socda meesha wuxuu yiri ay sarar sitaan arkaa markaas aan aamusi karin buu hadli aamusi kari waa yaa walda kama hadli jirin waxaas waxaan arkay dad walaalahay inaan wax tarayo laakiin xumaantii waxa la walaaqayo la wadayo colaad iyo fool xumo iyo qabyaalada dadkii walaalahooda bay colaad galiyeen fool xumo
dadaan qabyaalad buu qonin qabyaalada ku jira baa qabyaalad la gashay marka waasuu sheegaya ee sararta markaad aragtaa baad hadlaysa waxaan leeyahay ilaahay hadeeyo dadka foolxumada ka shaqeynayay qabyaalada iyo foolxumo qulunimada meelayd geerisay meela ku tegaysaan toona ma jirto khasaara ka keenteen qabyaaladii aad ku burburiseen dowladdii hore soomaaliyeed heerkaa soo marteen waa ogtiin maalinkan maanta la joogo ahunbaa intii dagaalka hadda dhacay maanta ma ugu rob ka faa'iidaysta aan leeyahay dowladnimada oo dowladnimada ku dhaqma oo dowladnimada ku noolaada oo sii wada oo qabyaalada iyo foolxumada dadka ka daayay oo dadkaas ku dirina reer xamar baan la hadlaya dadka dhinaca naga xiga koonfurta dadkaas ku dirina dad aan qabyaalad buu aqoon qolyo wax la kala yahay kala aqoon oo qabaylka kala aqoon baa qabyaaladii la bar وصلنا نمانك حاجة أشتكي ولا هاي ممكن محابيس تغبتين كل جلبة شيء يعني بقرن وحيين بقرن وياه طبعا كانوا غنبة بتشردي لكن تفيق أصدقك الكبر قبيلة دي لوك أنت ممكن يعني عليه يوم كارلي يعني يو قبيلتنا كبرين ضد كنا كبرين ضد أنا كبرين تدوبي أنا هي من ما ليش يعني ولا غبتك ولا غبتها بيكوي رياتها يو رياتها تدولي واي يا ويا هي بكسوير marka horta dadaan kala aqoon baa jira dadka qabyaaladna aqoonin laakiin tifiyada tan iminka dhulkan laga hadlayo ka hadlaysaan baan wax walba laga baranayaa kii aan aqoonna waa barteen foolxumo arkay colaad dad qabyaalad iyo qabiil un ku taagano been iyo inta kale turba bal rogayaan ma dadka waa dadka man dhawa bal rogayaan beentay ka daran been saas oo ana saad cad oo la isku raacsan yahay la isku markaan furiyo waliba been حانو ملاينيا أدوكم من الدنيا عسل قروي لقصر هوي خاف ربكم من الله لا يخبقوا لا كعبسوا ومد السلام نود قليه طبعا قبائل كالتين بكلا قوم بتشتى لا يكعبسوا وحشاد